مرحبا برنامج مرحبا باللغة الصومالية أمالنا انت الأمل فينا تربى واكتمل دار المحبة والسلام دار البنا جد وعمل idaacadda reediyo afrika waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamijka soo dhawaada oo ku baxaya luuqadda afka soomaaliga kala soco barnaamijyo muhiim ah idaacaddeenna duhurnimo xaqiiq iyo sugnaansho ku salaysan bismillaahi raxmaani raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal sharafta leh meel walba aad nagala socotaan waa mar kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee marxaba oo xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan radio africa 95.3 megahertz muddada uu socon doona barnaamijkeena marxaba qodobada aad ku maqli doontaan haddii alla awoodo leh raalli ka noqdo waxaa ka mid ah xubintii gorfeynta dheganaha warbaahinta oo aad ku maqli doontaan sidee baan u fahnaa warbaahinta saameynta ay ku leedahay warbaahinta baraha bulshada siyaasadda soomaalida warbaahinta casriga ah xayeysiinta iyo kaalinta ay ku leedahay bulshada sida looga sooco wararka beenta qodobadaas ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena ee marxaba waa hagaag dhegeystayaal aanu ku bilaabno xubinteena gorfeynta dheganaha warbaahinta oon maanta kusoo qadan doono sidee baan u fahnaa warbaahinta xubintan alaaga waxaa ileh daadihiya waryaheena idriis ibraahim idriis kusoo dhawow marka hore barnaamijka mahadsantahay xasan yuusuf adiga abunada radio africa aan ku dhawahay aanu ku bilaabno su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa warbaahinteena ugu hareysan iyo saameynta ay ku leedahay nolosheena mar labaad oo mahadsantahay weri xasan si guud warbaahinta iyo bulshadu ma kala maarmayaan waqti xaadirkan aynu nool lahayna waxaynu ku nool nahay biico mucaasara ama cusub oy 4 tijaabo ka xigto warbaahin noocyadeeda kala duwan haddaynu sii faahfaahino warbaahintii tii la aqriyay raadiyooyada iyo joornaaladii kuwa dhegeysanaya idaacadda ay tanaafin ka tamin oo kale ah iyo tviyadii la arkaya maqalkii muuqaalkalada lahaa intaasi waxaa dheer internetkii wasaa'il tawasul ijtimaaci iyo social media oo aad hadda waqti xaadirkan iyo dhawaanahan baa usoo shaabaxay oo laga yaabo inuu meesha ka saaraya kuwaasi oo intiiba laga helayo hadday tv noqoto hadday idaacad noqoto iyo hadday joornaal noqoto intii iskobsanaysa laga helayo markaa si guud warbaahintu gool weyn iyo iclaamku si guud wuxuu ugu wareegsan yahay ama aanu nolosha bini'aadamku hadda casrigan oo la uga maarmayno 4 jihada ka xiga waxa weeye warbaahinta casriga ah hadda marka waxay tahay waxyaabaha warbaahintaas ay nagu hareysan aan ugu baahannahay waxyaabo badan baynu uga baahannahay oo haddii aan ku eliba warbaahinta casriga ah iyo nolosha bini'aadamka casriga waqti xaadirkan ma kala maarmayaan waxay isku xidhayaan silata rabti ama waxba isku xidhayaan labadooda waaweyn haddii la waayo waxaasina laga yaabo in nolosha bini'aadamku khalqal weyn gasho waxyaabaha ugu waaweyn ee laga helayo warbaahinta waa inaad macluumo ka hesho oo maanta haddii mobilkaasi kaa maqayo maanta ama kaa jabo oo ama si kale uu kaaga maqnaadaba hal maalin waxaa laga yaabaa inaad adduunka gebigiisaba ka maqnaato ood wax macluumo aad helaysaa jirin mobilkaagaasi wax allayaalo wixii adduunka jooga isagaa kuusoo koobaya isagaad ka dhegeysanaysa hadday raadiyo noqoto isagaad ka daaracanaysa hadday internet ka noqoto wararkii caalamka iyo meel walba adduunka ah marka inayn macluumo ka helo warbaahintii oo waxaad aweyn maanta adduunka daafaha adduunka maxaa ka dhacaya dalkii hooyo soomaaliya maxaa ka dhacaya maxaa isbedelo adduunka ka dhacay maxaa cimilada siay tahay waxyaaba badan inaad ka faa'iido in sidoo kale tawjiih lagu sameeyo iyo baraarujin mujtamaca oo wax loo sii dhex mariyo ha samaado ha xumaado
توجيه سلوك المجتمع إن لا يستمر وقف والروح وروريا كمسلمين تين وح وروريا بشدة ذي كل الأشياء يبقى راعية وسائل التواصل الاجتماعي كل كسر شيء بشدة مسلم كإلد جال لما هي الإسلام بدوني لما تجار سيانا اللي لفت ذو حسوا أديك سنة بشدة ذي كل مرياني الإسلام وقرد جالنا sidoo kale in taxarruc caadifi iyo tasliyayn la sameeyo oo bulshadu ay ku nasato oo waqtigooda faraaqaa ku qaataan oo ay ku kulmaan midda ugu muhiimsan ee warbaahinta aan uga baahannahay waqti xaadirkan waxa weeyaan tafaacul ijtimaaci isdhexgalka bulshada iyo in bulshadii kala warqaadato in bulshadii ay maanta Soomaaliyeed aynu soo qaadano hakala boqonaatay laakiin afarta beelbeelajiyo raaskan barilaha waxa weeyaan waa kala warqabaan maanta hadii xagaas wax ka dhaceen hadii halkaas wax ka dhaceen dhibaatada soo kordhay waxyaabaha siyaasadda ku soo kordhay waxyaabaha dhaqan bulshada ku soo kordhay wax walba laga warhayaa marka waxyaabo badan oo faa'iido ay leedahay aad iyo ma santay Idris in waqti intee leeg ayaan ku bixinaa marka warbaahinta haddii aan ku eri waxa weeyaan warbaahintu nolosheena waxay ka qaadanaysaa 95% waqtigan ku bixinana wuxuu ka cadaanaya jawaabtaasi ah inaan waqti weyn ku bixino oo waqti aad u badan ku bixino warbaahintii habaad waqtigaasi yaan looga faa'iideysan sidii saxda ah oo warbaahinta dad baa u gala inay ku madadaalistaan oo si sax ah midna qaadan soo qaato ardayda wax baranaysa oo kale warbaahinta waqti badan bay ka lumisaa waqti xaadirkan social media سيبان وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وكله انستغرام وكله وحاولنا انها ugu badan waqti ka hormar dhalinyarti laga yaabo inaan wax macluumaad oo rasmi oo faa'iido aan ka helin hadii maanta gelina google-ka ama gelina meel kale macluumaad raadina waqtigaas uu ku bixinayo barahaas bulshada tarfiiha iyo inuu muuqaalo saaxiibadiisa iska daawado in waxyaabo kale oo aan noloshiisa wax faa'iido u lahayn iska daawado haduu ku bixin lahaa inuu kaga faa'iideysto dhanka warbaahinta wax badan ka faa'iideeyo marka waqti aad u badan bay ku bixinayaan marka manhaj dadka bartilmaameedku ah warbaahintaas nagu xiriiraysan dabcan way noqonaa inaan bartilmaameed u noqono ajandayaal kala duwan warbaahinta laga yeesho waxa jirta qaacido ku jirta kitaabka handasada jamhuur oo ku soo qaadanayo 10 qaacido ay warbaahinta bulshada ku qaadato oo ay waxyaabo salbi ama waxyaabo aan fiicnayn oo dhigta wax wanaagsan waxa kamid ah qaacidaha carabiga u dhigneed man yafعل السمار يختار لحنا tusaaleyno aan Soomaali rodno wuxuu isku tashbiih tamhiil wax isku xidhay qofka matalan oo kale soo gata kabaku ama soo kareysta kabaku isaga dooranaya in kasta lagu tumayo warbaahintuna ku shubameen dhigana ajandaha qofka soo maanta hadii aad adigu warbaahin ka shaqeynayso raadiyo aad leedahay anigu إدريسي هذي أنا قوي ماذا كل هذا العقد إلى عقد أسقاطه أجندها سيفولي برنامج كسوان نوعه وحلقيها بقوانين تكاجد دجن إن برنامج كان وحي إنه ونفسية أنا إسكارت لكن أضو أردنا نسأم إن كفى جانب مالية ونسيب بنت والباهين الصومالية مركا أجندياش والباهين تو والباهين إسكسم اسم التامل جتو إلى أجندة أكيد عندنا إن وحلقها مركا والباهين والله عالم قسم يسن صومالي هلا عطو جانبها تعيد هلا عطو وحاولين وراءها أجندة سياسية أما ميت كله أنا كذا بيه أو روسي بيه هذه ما سنت تدرس waxaa inta badan laga hadlaa dhexaadnimada warbaahinta hadda warbaahinta ma tahay mid dhexaada ma filayo warbaahintu inay dhexaad tahay tusaale haddii aan u bixiyo dhegeystayaasha warbaahinta aan laba kala qaado warbaahin dawladeed iyo warbaahin gaar haddii aan u kala qaado oo inaba xagga dhexaadnimada labada tusaale bas kala tusanaa dhegeystayaasha warbaahinta dawladdu badan waxa ay dhexdhexaad u noqonahay in tarwiij waxa uu sameynaysaa iyo dawladda suuqeyn waxa uu sameynaysaa dawladdii markaas joogtay iyadoo ka gadaysa shacabkii waxyaabo badan oo been oo propagandooyin oo inay qaban u soo gudbinaysa sidoo kale la dagaalamaysa dawladihii kale jaarka ay siyaasad isku hayaan oo ka faafinaysa beeno ka faafinaysa waxyaabaha runta ee dalkeeda oo la sii buunbuuniyo oo kale matalan qad saaradii soo qanaa jasiiro oo kale dagaal waxay kula jirtaa wadamada khaliijka ee dalka wadamiyay waxay
mar walba soo qaata siyaasaadkooda oo jaanibka salbiga ka tusan dadka ku xiran markaas ma oran karno warbaahinta dhanka dawladdu dhex bay noqon kartaa markaan jaanibka ka eegno warbaahinta gaarka loo leeyahay inta badan sheegato inay yihiin iyagu dhexdhexaad u dhexeeyaan haddii iyagana tusaale ka bixino warbaahinta gaarka ah waxaanay u noqonahayn warbaahinta gaarka iyo dhex warbaahinta gaarka iyadu waxay ku shaqaysaa caayid maali ama wax iyadu maali ka helayso in la qaalo oo rasmi dowladda dacminaysa iyadu iyadaa isdacmisa oo dee waxay kala soo hadday noqoto noqoto markaas marka loo yimaado ay cid u timaado wadata adduun doonaysa in ay u samayso barnaamij noocan ma barnaamijkaasi cid uun buu duulimaad ku yahay amba cid buu ka hadlaya amba cid buu ayaa jaanib wax laga tusaya marka iyadana dhankaas waxaan oran karnaa dhexdhexaad ma noqon karto aad iyo aad umaadsantahay Idriis Ibrahim warbaahinta miyayna saameysaa marka nolosheena dabcan way saameysaa nolosheeda oo tusaalayaal badan haddii aynu usoo qaadanay in warbaahinta aanay bulshadu ka maarmaynin oo warbaahinta iyo weliba waqti xaadirkan dambe bulshada mucaasirka ah ee social media aadka ugu taxan aanay ka maarmayn saameyn weyn ugu yeelanaysaa saameynahaasi mid taban iyo mid togan labadaba way yeelanayaanoo saameynta ay ku yeelanayso bulshada waxaa ka mid ah in idmaan lagu sameeyo oo dadkii aad uga qabsadaan oo laga yaabo in uu warar been abuura oo badan meeshaasi kasoo qaato isaga laftiisuna uu sii faafiyo laba qof tafaacilkii oo kusii dhex jira social media intuu kasoo muuqdo meel war oo haddana isagu sii faafiyo sidaas bulshada khalal badan uga dhaco oo in maantana ay midhaheeda guraan ra'yiga bedelan marka war been abuur soo baxo inay sii faafiyaan 100,000 iyagoo isweydiinin dadkaasi mustaqbalka khabarkan ay qaadanayaan iyo khabarkan runtiisa iyo khabarkan saameynta uu ku yeelan karo bulshada haddii la faafiyo oo iyo qofka laga qaadanayo tahay marka cid ay gacanta ugu jirto warbaahinta caalamka ma filayo in cid gaar ugu jirto warbaahintu waa kala duwantay dal waliba warbaahin gaara uu leeyahay warbaahinta caalamku waxay gacanta ugu jirtaa waa la kala warbaahin waa kala afdheer yihiin oo waxay jirta warbaahin la yiraahdo iyada waa afdheer adduunka iyo mid la yiraahdo waa kuwa yoga iska hoose warbaahinteena Soomaaliya xagga hoose bay ku jirtaa marka ay soo qaadano tusaale warbaahintu si guud waxay gacanta ugu jirtaa bulshooyinka reer galbeedka oo iyagu si doonaan ka yeesha dadweynaha kale oo warbaahintooda iyaga ku ugu sareeya saameyn toos ah ku yeelan kara dadweynaha kale warbaahintan carabiga ay carabta laftooda ama khaliij carabiga iyo aagaas laftooda iyaga warbaahino badan oo saameyn badan leh way jiraan laakiin waxa ka saameyn badan warbaahinaha reer galbeedka su-aasha ugu dambeysa rabaa ku weydiiyo Idriis waxaa la yiraahdaa hadafyada warbaahinta waxaa ka mid ah in dadka ay wax barto markaad eegto warbaahinta Soomaalida dhankaasi ma ku badan tahay mise waxaa ka jira isla gaabis ومحسنتي حسن ويبرتها وحياة بدن فائدة لو بهيت الصومالي ويبرتها وكفائدة لكن ضدك أيام فهن سنة يصير لو فائدة سنة يصير لو قرن عبرها سن الفضول يكون شلو البهيت وكذا مشكورة وحياة بدن وكذا أندن راحين مركب واحد أمن سنة هاي وحياة بدن ومدينة warbaahinta Soomaaliya ay ku jiraan laakiin sidii rasmiga ah looga faa'iideysan la rabay dadku waxyaabo kale kaga mashquulaan aad iyo aad ay u maasan yahay kaasina waxa ahaa wariye Idriis Ibrahim oo la gorfeenayay xubinta gorfeynta dhiganaha warbaahinta oo aan maanta ku soo qaadanay sidee baan u fahnaa warbaahinta dhageystayaal wali waxaad degeysanaysaan barnaamijkeena marxaba oo qaybihiisa hore ku jirnaa qodobada inoo soo socday maqli doontaan waxaa kamid ah saameynta ay ku leedahay warbaahinta baraha bulshada siyaasadda Soomaaliya warbaahinta casriga ah xayeysiinta iyo waliba kaalinta ay ku leedahay bulshada sida looga sooco wararka beenta markana waxay ku soo dhawaataan qodob ka hadlaya saameynta ay ku leedahay warbaahinta baraha bulshada siyaasadda Soomaaliya waxaana inoo hayo wariye Cabdiraxmaan Qadar mahadsantahay xasan kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada taxaniheena warbaahinta iyo baahida bulshada oo aynu toddobaadkan kusoo qaadan doono dhigano kooban oo ka waramaya habka ay baraha bulshada uga qayb qaateen isbedelka siyaasadeed ee Soomaalida siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay had iyo jeer ahayd mid ay korka ka maamulaan kooxo kooban oo awoodda ka helay qabiil ahaan ama fursado ka helay xukunkii militariga ahaa ee madaxweynihii Maxamed Siyaad Barre ka hor inta aysan burburin dowladdii Soomaaliya taariikhda Soomaaliya ama waxa sida guud loo ogyahay ayaa ku saleysan shakhsiyaad gaar ah
oo intaay ku salaysan tahay shakhsiyaad gaar ah iyo go-aanadooda siyaasadeed iyadoo ay yar tahay amaba aysan jirinba wax ku salaysan dhacdooyin dhab ah. dhaqanka hadalka ee soomaalida ayaa si weyn u qiimeysiiyey gabayada iyo suugaanta, waxaana ka buuxa sheekooyin iyo dhacdooyin kooban laga soo bilaabo xornimadii sanadii 1960 ilaa laga gaadho burburkii dowladda Soomaaliya ee sanadii 1991. warbaahinta Soomaaliya ee xilligaas jirtay waxay ahayd mid dowladda leedahay oo ay gacanta ku hayso, isla markaana shakhsiyaad kooban ay dadweynaha u soo gudbiyaan dhacdooyinka waxyaabaha ay u arkaan inay muhiim tahay. taasi waxay ahayd khalad ay keentay guulwadaynta amaba amaanida madaxdii waqtigaasi talinaysay. kadib dagaalkii sokeeye waxaa sare u kacay xilligii fawdada warbaahin u abaabulan qaab qabiil oo gudbisa dacaayad qabiil. taasi waxaa xigay soo shaacbixii baraha bulshada ee internetku saamaxay oo ay xigtay telefishinada gaarka loo leeyahay. dhammaan horumaradaas laga sameeyey warbaahinta farsamo ahaan waxay ahaayeen kuwo casri ah, laakiin waxyaabaha ay gudbinayaan cidda maamusha iyo bartilmaameedku waxay yihiin kuwa ay hagto koox yar oo isticmaalaya dhaqaale amaba saameyn kale oo siyaasadeed. marar badan waxaa dhacda in mulkiilayaasha iyo danleyda siyaasadeed ay hal qof noqdaan, sidaasina uga faa'iidaystaan inay ku gaadhaan danahooda siyaasadeed. dhinac kasta oo aad ka eegtid dadka caadiga ah waxay u adkayd amaba waxaa ku adkayd inay helaan fursad ay uga qayb noqon karaan isbedelada amaba saameynta kale ay ku yeelan karaan. sanadahaas oo dhan dadka Soomaaliyeed waxa ay dhibane u ahaayeen sheekooyin hal dhinac ah oo ay dantu ku qasbaysay inay qaataan, maadaama aysan haysan qaab kale oo ay ku soo gudbin karaan xaqiiqooyinka jira amaba sida dhabta ah ee ay xaaladu tahay. maanta warbaahinta Soomaalida waxaa ku dhacay kacaan dhanka warbaahinta ah oo ay sababtay baraha bulshadu iyo helitaanka ay dadku heli karaan adeega internetka. ma jirto koox yar oo keligeed go'aamin karta ajendayaasha iyo sheekooyinka abuuro doodaha iyo falanqaynta baraha bulshada. soo ifbaxa isticmaalka baraha bulshada ayaa horseeday in Soomaalidu ay ka qayb qaataan doodaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee dalka, kuwaasi oo ka socda iyagoo falanqeeyayaal amaba si kale u isticmaalaya baraha bulshada, iyagoo soo gudbiya arrimo inta badan aysan warbaahinta caadiga ahi soo gudbin, iyagoo aan u baahnayn meelo ay sii maraan sida raadiye ama telefishan si ay u gudbiyaan afkaartooda sida xilliyadii hore. ma jirto sidii sanadihii hore inay dadku hal meel war ka dhageystaan, kuwaasi oo inta ugu muhiimsan ay xarumahooda ku yaaleen dalka dibaddiisa. waqtiganse wararka ayaa si dhaqso badan waxay u soo gaadhayaan baraha bulshada, waxaana baraha bulshadu ay ka qayb qaadanayaan wargelinta iyo maaweelinta dadka iyo caalamka intiisa kaleba. shaki kuma jiro in awoodda baraha bulshadu ay dib u qeexday isku dhalitirka awoodda milkiilayaasha warbaahinta iyo dhegeystayaasha oo si isku mid ah ayay ciddii doonta u jihayn kartaa jihada wararka. baraha bulshadu waxay fureen qaab cusub oo toos ah oo ay ugu wada xidhiidhi karaan madaxda la doortay si dimuqraadi ah dadka ay xukumayaan. muwaadiniinta caadiga ah ee awalka dhibka badan ku qabay helitaanka wararka ayaa hadda ku jira baraha bulshada. maanta ururo iyo kacdoono badan oo heer caalami ah ayna ka mid yihiin kacdoonkii carabta iyo dhaqdhaqaaqii lagu magacaabi karay ama sidoo kale amaba Me Too ayaa waxaa abuuray keliya qoraalle iyo muuqaallo lagu soo celceliyey oo lagu faafiyey baraha Facebook iyo Twitter. waxay tani caddayn u tahay in baraha bulshadu ay dadweynaha siiyeen fursad ay ku noqon karaan akhristayaal iyo sidoo kale inay iyaguba abaabulaan amaba abuuraan sheekooyin iyo qarmooyin, taasi oo fahamsiisay qiimahooda wax soo saarka warbaahineed. in badan oo isticmaasho baraha bulshada ayaa hadda aragtidooda ka dhiibanaya oo ka hor imaanaya waxyaabaha ay baahinayaan warbaahinta caadiga ahi, iyagoo la imanaya soo jeedin ka bedelan tan warbaahinta soo jireenka ah. saameynta dadka baraha bulshada isticmaala waxay gaadhay in dadka siyaasadaha dejiya ee dalalka dimuqraadiyaddooda fadhida ay si toos ah ula xidhiidhaan oo tixgeliyaan dadka baraha bulshada isticmaala. dadyooga casriga baraha bulshada sinaba looma marin habaabin karo oo lagama dhaadhicin karo sheekooyin samays ah oo ujeedka laga leeyahay uu yahay in ay aqbalaan wax aanay aqbali lahayn haddii aanay haysan dhinac kale oo ay wax ka ogaadaan. Soomaalidu sida dunida kale dadka siyaasadda dejiya waxay ka faa'iideysan karaan ballaadhashada ay ballaaratay ka qayb qaadashada ay dadku ka qayb qaadan karaan siyaasadda iyo go'aanada, oo waa inay xoojiyaan xidhiidhka bulshada oo si hufan iyo istaraatiijiyad leh ay saameyn ugu yeeshaan nolosha dadka Soomaaliyeed iyagoo isticmaalaya baraha bulshada iyo warbaahintii soo jireenka ahayd labadaba. haddaba
waxay sidaasi horseedi kartaa dimuqraadiyad dhanka warbaahinta ah oo dhankeeda fududaysa korarka siyaasadda loo dhanyahay iyo xoojinta dowlad wanaagga. shaki kuma jira in baraha bulshadu ay saameyn weyn ku leeyihiin siyaasadda soomaalida, maxaa yeelay waxay baraha bulshadu cod iyo mudalba siiyeen muwaadiniinta, wariyayaasha, u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada, kuwaasoo qoraal amaba muuqaal ay baraha kala duwan dhigaan ay runta ugu sheegi karaan madaxda talada dalka haysa. waxyaabaha sida gaarka ah ugu muuqda baraha bulshada ee soomaalida ayaa inay ogolaatay kooxadana kala duwan leh inay is-abaabulaan oo madaxda waxyaabaha ay tabanayeen gaadhsiiyaan fariimahooda iyaga oo aan si caadi ah ula kulmin. baraha bulshadu waxay kaloo fursad u abuuraan ganacsatada aan awoodin in ay dukaamo karaystaan, kuwaasoo helay bar ama suuq internet ah oo ay wax ku gadi karaan. sidoo kale baraha bulshadu waxyaabaha ay suurageliyeen waxay muujisay inay yihiin aalada ku wanaagsan awoodsiinta, isku xidhka, mideynta iyo horumarinta bulshada. sidoo kale waxay nooleeyeen soo jeedkii bulshada soomaaliyeed oo muuqda mid gaabis ahaa. waxaa muuqata in dadaalada iyo cadaadiska baraha bulshada laga wado ay dowladda ka dhigayaan mid ka jawaabta baahiyaha bulshada, taasoo sare u qaadaysa daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. waxaa keenaya in hay-adaha kala duwan ee dowladda ay sare u qaadaan daahfurnaanta ayaa ah in iyagoo u baqayo sumcadda shakhsiyaadka amaba hay-adaha dhexdeeda. baraha bulshadu waa aalado layskula xidhiidho oo bilaasha, sidaasi ay tahay waa inaysan bulshadu marnaba iloobin mabaadi'da asaasiga ee warbaahinta iyo anshaxa marka ay isticmaalayaan. marka la isticmaalayo waa in kuwa wax laga weydiiya bulshada ay cad yihiin fariimahooda, fahamsan yihiinna kuwa ay ugu talagaleen waxyaabaha ay soo gudbinayaan, islamarkaana ay adeegsadaan aaladaha ay heli karaan si ay u qiimeeyaan saameynta ka dhalan karta waxa ay dadka la wadaageen. soomaaliya waxaa ka jira baahi weyn oo loo qabo sharciga warbaahineed kaasoo isku miisaama xuquuqda xorriyadda hadalka iyo xuquuqda shakhsiyaadka iyo ururada sidoo kale loogu beegsado baraha bulshada. baraha bulshada waxaa ka jira sumcad dileed, ceebeyn, gaf loo geysanayo shakhsiyaad oo lagu duray, warar been ah oo aan sal iyo raad toona lahayn, kuwaas oo aanay sharci ahaan iyo siyaasad ahaan midna waxba ka qaban dowladdu, maxkamadaha dalka iyo ururada saxaafadda ee dalka ka jira intaba. caqabadaha ugu weyn ee haysata siyaasad dejiyayaasha dadka isticmaala baraha bulshada iyo wariyayaasha ayaa ah sida loo ilaalin karo tayada iyo xaqiiqnimada waxyaabaha lagu baahiyo baraha bulshada. kumana filna keliya dacwadaha loo gudbiyo maamulayaasha baraha bulshada, waa inuu jiraa sharciyo dalku leeyahay oo kaabaya sharciyada baraha bulshada si loo ilaaliyo xuquuqda baniaadamka. sidoo kale waa inay jiraan fursado badan oo la xidhiidha tababaro dhanka anshaxa iyo shuruucda ah oo la siinayo shakhsiyaadka iyo hay-adaha isticmaala baraha bulshada. dowladda, hay-adaha warbaahineed waa inay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii baraha bulshada loogu isticmaali lahaa dhinaca wanaagsan oo loogu hortegi lahaa cayda, gafafka, sumcad dilka iyo wararka been abuurka ah. soomaalida dhexdeeda sida dunida kale baraha bulshadu waxay dib u kicin iyo horumarinba ku wadaan nolosha bulshada iyo ganacsiyada gaarka ah. waxay sidoo kale baraha bulshadu jebiyaan habdhismeedka bulshooyinka oo koox yaroo kooban ay fursadaha cod iyo wax walba lahaayeen markii hore. waxaa muuqata fursado iyo caqabado badan oo ka bannaan baraha bulshada, taasoo si wada jir ah ay uga faa'iidaysan karaan dowladda iyo shacabku labadaba. ugu dambeyn, si baraha bulshadu u faa'iido badan u yeeshaan oo saameeyaan horumarka dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya, waa in si fiican loo maamulaa oo ay jiraan sharciyo adag oo looga hortago gafafka iyo wararka been abuurka. guud ahaan dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo afmeerayaa mawduuceeni toddobaadkan ama wataxanii inoo soo taxnayn jiray aynu kaga hadli jirnay baahida bulshada iyo warbaahinta aynu toddobaadkan kusoo qaadanay dhigano kooban oo ka waramaya habka ay baraha bulshadu uga qayb qaataan isbedelka siyaasadeed ee Soomaalida. aan dib idinku wareejiya Xasan Yuusuf si uu idinla socodsiiyo qaybaha kale ee barnaamijka. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa wariye Cabdiraxmaan Qadar oo inoo soo jeedinayay qodob xiiso leh ku saabsan saameynta ay ku leedahay warbaahinta baraha bulshada siyaasadda Soomaaliya. welina waxaad degeysanaysaan Radio Africa 95.3 MHz. waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena marxaba. markana waxaa kusoo dhawaataan qodob ka hadlaya warbaahinta casriga waxaana inoo soo jeedinayso wariyaheena Safa Xuseen Maxamed. bariida saniida lahaantiinba dhegaystayaal mawduuceena maanta waxaan kaga hadli doonaa warbaahinta casriga ah
macluumaadeed ay ku sugan tahay dunidu waqtigan aynu joogno ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah horumarka taariikhiga ah ee ay gaadhay dunidu. natiijooyinka ka dhashay kacdoonka macluumaadeed ayaa ah isbedelada waaweyn ee ku dhacay warshadaha warbaahinta, kaasoo dhaliyay kacdoonkaasi in warbaahintii laba loo kala qaado: warbaahinta qadiimiga ah oo koobsanaysa jaraa'idada, idaacadaha iyo tiifiyada, iyo warbaahinta cusub ee waqtigan aynu joogno oo iyana koobsanaysa shabakadaha internetyada iyo moobilada. sidoo kale adeegsiga bogagga internetyada lagu soo bandhigo dhacdooyinka dunida midba midka ay ka dambeyso, kaasoo majaalkii isgaarsiintu noqday mid u furan dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan, kii takhasuska u lahaa iyo kii aan u lahaynba. waxa aanay saameyn taban ku yeelatay bulshada intii ku xidhnayd baraha isgaarsiinta, una soo gudbisay fikirro bedelaya dhaqankooda iyo weliba caadaadkooda. warbaahinta casriga ahi waxay noqotay ilaha ay kasoo burqadaan wararka, xogaha iyo marba wixii cusub, iyadoo adeegsanaysa aaladaheeda kala duwan ee isgaarsiinta. waxayna bulshadii noqdeen qaar si qoto dheer ugu xidhan warbaahinta, rumaystana macluumaad kasta oo laga sheego. sidoo kale waxay door laxad leh ka qaadatay isdhexgalka bulshada, iyadoo ka dhigtay caalamkii tuulo yar oo ay ku kulmaan malaayiin qof oo aan dal, diin, dhaqan iyo weliba luuqad toon wadaagin. warbaahinta casriga ahi waxay fududeysay ka qayb qaadashada uu qof kasta kaga qayb qaadan karo inuu fariintiisa iyo afkaartiisa uu la wadaago bulshada, asagoo isticmaalaya aaladaha isgaarsiinta ee aadka u fudfudud. sidoo kale waxay suurtagelisay in aad barato tacliinta aad doonto adigoo gurigaaga jooga. horumarka ku dhacay tiknoolajiyadda ayaa fududeysay in aaladihii isgaarsiinta ay gaadho heer ay qof walba la socoto meel kasta iyo weliba waqti kastana gacantiisa ka madhnayn, sida moobilada, laabtoobyada iyo weliba aaladaha wirelesska ah. waxaa kaloo ayana ka maqnayn maada iyo madadaalada ay qofka siinayso inta uu gurigiisa joogo, haddii ay noqoto inuu daawado riwaayadaha ama barnaamijyada maaweelinta ah. warbaahinta casriga ahi waxay warbaahintii hore kaga wanaagsan tahay kaydinta qadarka aad doonto ee macluumaada iyo weliba fariimo, adigoo ku laaban kara waqtiga aad doonto. sida ay warbaahinta casriga ahi u leedahay saameyn togan, kama maqna sidoo kale saameyno taban. waxaana ka mid ah saameynahaas in ay bulshada noqdeen qaar balwad ka dhigta oo waqtigooda ugu badan ku dayaca baraha isgaarsiinta. isticmaalka faraha badan ee bulshadu isticmaalayso baraha isgaarsiinta waxaa ka dhalanaya caafimaad darro, sida in ay soo waajahaan bulshada xanuunada indhaha iyo weliba wadnaha. waxaa kaloo inoo soo gudbisaa baraha isgaarsiintu fikirada wadamada qalaad, sida dhaqankooda iyo caadaadkooda, taasay bulshada noqdeen qaar ku dayda marba wixii ay ka dhehdaan baraha isgaarsiinta. waxay khubaradu sheegeen in sababaha ugu waaweyn ee ku yaxayay inay bulshadu badsadaan aaladaha isgaarsiinta ay tahay inay bulshadii kaga baxsanayso waaqicii ay ku noolaayeen iyo mas-uuliyadihii saarnaad, sidoo kale in ay u haystaan ilbaxnimo. haddaba dhegaystay, warbaahinta casriga ahi waa sidii seef laba af leh oo dhan wanaagsan iyo dhan xunba leh, balse waxay ku xidhan tahay hadba sidaad u adeegsato. waxaan intaa kusoo koobaya xubintii aan kaga hadlayay warbaahinta casriga ah, waxaana idinla socodsiinaysa anigoo Safo Xuseen. intaan ku kulmayno xubinta xigta waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. aada iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxayd wariyey Safo Xuseen oo noo soo jeedinaysay qodob xiise leh oo ku saabsanaa warbaahinta casriga ah. welina waxaad dhegeysanaysaan Radio Africa 95.3 megahertz. waxaana qaybihii dambe ku jirnaa barnaamijkeena marxaba. markana waxaa kusoo dhawaataan qodob kale oo ku saabsan xayeysiinta iyo kaalinta ay ku leedahay bulshada, waxaana inoo soo jeedi doonto weri Najax Jamaal. waad mahadsan tahay xasan. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiinba kuna soo dhawaada xubinteena maanta oon kaga hadli doono dacaayadda iyo xayeysiinta, gaar ahaan doorka ay ku leedahay macaamiisha iyo ujeedooyinkeeda kala duwan ee looga dan leeyahay. waxaan idinla socodsiinaysaa anigoo ah Najax Jamaal ee dhegeysi wacan. warbaahintu waa mid u taagan inay soo gudbiso baahiyaha saxda ah ama taariikhda saxda ah ee ka dhex jirta bulshada qaybaheeda kala duwan, taasoo u dabooleysa baahiyaha bulshada. muhiimada ay isgaadhsiintu leedahay ayaa door laxaadle ka qaadanaysa horumarka fikirka aadanaha, horumarka dhaqanka iyo welibana dhanka wax soo saarka. dhegeystayaasheeda sharafta laho, haddii waxaad qortay ama raadiyaha ka sheegtay aanay xiiso lahayn, qofku waxa uu raadsanayaa mid ka xiiso badan.
haddaba muhiimadda ku jirta hadalkani waxay tahay inaan tixgelin badan siino waxaan soo tabinayno xogta aan odhanayno iyadoonay ka maqneen adeega aan rabno inaan iibgeyno. haddii aan eegno dacaayadda waa mid ka mid ah hababka xayeysiinta oo looga gun leeyahay in lagu saameeyo fikradaha, isbedelada iyo dabeecadaha macaamiisha kala duwan. dacaayaddu waa mid ka mid ah hababka awoodda badan ee dadka lagu kasbado iyadoo ay weheliso fikrad amaba ujeedo gaar ah. dacaayaddu waa mid ka mid ah qaababka doorka muhiimka ah ka qaata xayeysiinta, laakiin dacaayaddu waa mid ka mid ah qaabab qaadata door muhiima xayeysiinta oo qura, balse waxay kaalin ku leedahay in lagu xaqiijiyo ujeedooyin guud oo kale, sida inay ihtimaam siiso dhinaca tartanka shirkadaha oo dadka maskaxdooda lagu abuuro suurad ah in ay shirkadu wanaagsan tahay iyo adeeg ay bixinayso. waxaa loo isticmaalaa in lagu xayeysiiyo amba lagu ogeysiiyo dadka waxyaabaha ay soo saarta shirkadda, laguna xasuusiyo astaanta ganacsiga, isla markaana lagu abuuro aragtiyo ku saabsan inay shirkaddu had iyo jeer ku dadaasho inay horumariso oo ay cusboonaysiiso si ay u buuxiso baahiyaha dadka. haddii aan eegno kala duwanaanshaha dacaayadda iyo xayeysiinta, waxaan odhan karnaa dacaayaddu mar walba waxay raadinaysaa inay qariso ilaha ay ka soo jeedo iyo dhinacyada ka hooseeya, halka ay xayeysiinta mar walba la ogyahay ilaha iyo xisbiga qabanaya iyo walibana soo saaraya. xayeysiinta waxaa lagu qeexaa inay tahay dhinacyo kala duwan oo waxyaabo kala duwan taasoo horseeda soo jiidashada macaamiisha, iyadoo ujeedadu tahay in lagu booriyay inay soo iibsadaan badeecooyin amaba adeegyo gaar ah, amaba ay aqbalaan fikradaha wanaagsan ee ku saabsan dadka iyo xarumaha la xayeysiinayo. dhegeysta ma og tahay dacaayadda iyo xayeysiinta inay yihiin waxyaabaha ugu badan ee ku dhiirigeliya qofka inuu alaab iibsado tu kalena ka taga. haddii aan eegno hababka loo adeegsado marka wax la xayeysiinayo, waxaa ka mid ah raadiyaha iyo tv-ga. dhegeystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan, intaas waxaynuugu eeg xubinteeni maanta oon kaga hadlaynay xayeysiinta iyo kaalinta ay ku leedahay bulshada. intaan ku kulmi doono kulanka xiga, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaanaal. aada iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd wariyeyne jaxjamaal oo nala soo siineysay qodob ku saabsan xayeysiinta iyo weliba kaalinta ay ku leedahay bulshada. markana waxaad kusoo dhawaataan qodob kale oo ka hadlaya sida looga sooco wararka runta ah, wararka beenta, waxaana inoo soo jeedin doonta wariyaheena mushtaaq maxamed. waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad kusoo dhawaataan qodob ka hadlaya sida looga sooco wararka runta ah, wararka beenta, waxaana inoo soo jeedin doonto wariye mushtaaq maxamed. kulanti waxaan dhegeystayaal idil ahaantiinba halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa radio africa 95.3 FM. kusoo dhawaada xubinteena maanta oo aan kusoo qaadan doono sida looga sooco wararka runta, wararka beenta. waxaa jira laba nooc oo kamid ah wararka mala awaalka, waxayna kala yihiin
war aan run ahayn waa sheekooyin iyo warar aan saliiraatoona lahayn sababta loo abuurayaana tahay in dadka la aaminsiiyo lagana dhaadhiciyo fikradani gaaro adeegisa mararka qaarna inay bunbuniyaan alaab laga faafiyo sifooyin aynan lahayn keliya soo iibsadaan tiro badan wadadii warar ay bar ka mid run tahay inta badanse ay tahay been tusaale ahaan waxaa dhacda in nin siyaasiya uu shir ka qayb galo qaar ka mid ah dadka arrintan caadada ka dhigta ee u adeegsanaya tegitaankiisa dhinacyo kale warar dhanka warbaahintana kusoo qaadaan iyagoo sumcadiisa meel kaga dhacaya bulshadana ka aaminsiinaya sida iyagu rabaan haddaba halkee ayay ka yimaadeen wararka noocani wararkani maaha qaar ay iminka soo bixidooda ugu horeyso laakiin waxaa cusub ayaa ah sida fudud ee la wada wadaagaya warka been iyo run labadaba ku doona ha ahaado arrinta u fududaysayna waxay tahay baraha isgaarsiinta warbaahineed oo marba marka ka dambeysa sii horumaraysa iyo dadka caalamka ku nool oo afkaartooda isbedelayso hadday noqoto dhanka siyaasadda horumarka caadooyinka aaminada diineed iyo tacaqliyeed shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta bulshada sida Twitter iyo Facebook ayaa u ogolaaday in qof kasta la wadaagi karo sheekooyin iyo afkaartiisa caalamka dadka ku nool oo dhan haddaba dhibta jirta ayaa ah in dadka intooda wadaagaysa waxay faafinayaan xaqiiqdooda taasoo sababtay in wararka beenta ay si baan ugu faafan bulshada dhexdeeda waxaa arrin adaga in ogaado waxa internetka yaala asalhaantooda iyadoo dadka qaar ku sababtay inaanay waxba ka baahin iyadoo dadka qaar ka sababtay inaanay waxba ka baarin kalsooni la-aan jirta awgeed daraasad lagu sameeyey dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in ka badan boqolkiiba 20 dadka Mareykanka ay booqan jireen bogag warar oo been ku saleysan muddo gaaraysa 6 toddobaad xilligii doorashadii waxay dhacaysay sanadii 2011 wararka noocan faafintooda sidoo kale waxaa ka qayb qaata dadka iyagoo aan hubsan bulshada la wadaagaya waxay soo maqlaan xataa haddii xumaan haysan waxay saameyn taban ku yeelanaysaa dadka ku hareeraysan waxaa jira lix hab oo lagu ogaado warka marawaalka waxaa laga yaabaa raadinta xaqiiqada inaad dhib badan kala kulanto laakiinse way mutaysataa horumari caqligaaga mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee wararka marawaalka loo buunbuuniyo loogana dhigo wax muhiima ayaa ah sida fudud ee loo rumaysto kansikiyo qofku macluumaadkii uu haystay kadibna markuu war ka duwan ku arko meelaha bulshada ku wada xiriidho marar badan oo istabajooga waxaa fududaanaysa inuu ku qanco warkaas sidoo kale sababaha wararka noocan oo kale loo sameeyo ayaa ah si loo abuuro naxdin iyo feejignaan laguna abuuray dadka dadweynaha badanaan waxaa adeegsada siyaasiyiinta si ay cidnadu faragashaan howlahooda waxaa laga maarmaan ah inaad caqligaaga maamusho wax kastoo aad aragto amaba aad maqasho wala dhaqanta si caqliyeysan shakhsiyadaada matalaysa weydiisa naftaada su-aalo dhowra waa maxay sababta warkan loo qaray mase lagu qanciyo aragti gaar ayaa loo qaray hubi ilaha warka haddaad ka shakido warar isku day inaad ogaato halka waa salhaan ka yimid baaritaan ku samacda warka faafisay mukaalad wareed caana oo xirfado shaqo oo wacan leh mise waa qof aan cid badani aqoon ka ogeyn oo iskiisaga faafinaya warka waxaad baaritaan ku samaysay ciwaanka beejkaad wax ka baaraysid hadduu ku dhammaado offer amaba infonet halkii uu kaga dhammaan lahaa .com iyo haddii qoraal ahaan khaladiid ku jiraan kadibtoona waxaa laga yaabaa inuu yahay beej manawaale haddii qof kuu sheego war waxaad ka fikirtaa sumcadiisu waa sidee khibrad ma uu leeyahay waxaanuu kuu sheegayo ma qof walbooninta yaqaanaba yaa faafiyey warka waxaad hubisaa wakaaladaha wararka faafinaya waayo maqaar sumcadii warar caafimaad qaba looga bartayba xataa haddii war saxa looga bartay haddana waxaad hubisaa miyiga ayaa faafiyey mise waa laga soo xaday warka hubi cadeymaha aad haysato waxaad hubisaa in cadeyntaada haysataa tahay tii runta ahayd iyo inay tahay mid lagu diyaariyey xataa haddaad tahay qof indheergarada oo xabaarista yaqaan si aad u guratid miro beena oo lagu diyaariyey baaritaan ku samey sawirka horumarka dhanka teknolojiyadda iyo internetku waxay sahleen in aan la garan sawirka xaqiiqa inuu yahay in kale daraasado la sameeyeen waxaa lagu ogaaday in aanay dadka barka midi la kala sooci karin xaqiiqda sawirada waxaad ku garan kartaa ayaa ah inaad adeegsato image search iyo google reverse baaritaan ku samee warka horun iyo beenka uu egyahay adeegsa dareenkaaga caqligaaga iyo dhamin xubnahaaga waxaad noqotaa qof soo jeeda haddii kuula muuqato in warkaas yahay midaan macquul hayn laga yaabaa inaad saxsan tahay ugu dambeyn ka digtoonoo dhegeysta inaad faafiso warar aanad aqoon daragsanoo lahayn halkii kasoo jeedaan waxaa laga yaabaa inaad waxyeelayso sharaftaada sumcadaada shaqo inaad ka dhigto qof liita oo jaahila
inta waxaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal xubinteeni maanta oo aan kusoo qaadanay sida looga soo warkaro inta wararka beenta intaan ku kulmayno xubintan mid waxaan kaga tegaya sidaasi oo nabadgelyo. aad iyo aad ayay umahadsan tahay. taasina waxay ahayd wariye mushtaaq oo noo socodsiinaysa qodob ku saabsan sida looga soo warar karontaa wararka beenta ah. guud ahaan intaas ayaana kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena marxaba oo aad ku dhegeysateen qodobada kale ahaa xubinta gorfeynta dheganaha warbaahinta waan kusoo qaadanay sidii baan u fahanaa warbaahinta saameynta ay ku leedahay warbaahinta baraha bulshada siyaasadda soomaalida warbaahinta casriga xayeysiinta iyo kaalinta ay ku leedahay bulshada sida lagu sooco wararka runta wararka beenta barnaamijkan quruxda badan ee dhegeysateen dhegeystayaal waxaa soo saaray tabin iyo walba diyaaran isku howla anagoo kala xasan yuusuf maxamuud idriis ibraahim cabdiraxmaan qadar najax jamaal safa xuseen iyo weliba mushtaaq maxamed cabdirashiid dhanka farsamada gaarlaaneed waxaa farsameynayay maxamed raashiid intaan kulmayno barnaamijkan xiga inagoo isku duban dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.